Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu. Kusoo dhawaada janalka maalmaha. In badan oo ka mid ah dadka waxaa soo marto waqtiyo ay dareemayaan in aysan naftooda ku qanacsanin ama ay raalli ku ahayn. Waxa ayna dareemayaan inay u baahan yihiin in ay sameeyaan isbeddel si ay u helaan nolol ka wanaagsan midda ay ku jiraan. Ayadoo taasi jirto ayaa haddana waxaa aad u adag in si fudud lagu sameeyo isbeddel dhab ah. In la suubiyo isbeddel ama la hormariyo nafta waxa ay ka mid tahay sunnooyinka Allah uu u jideeyay koonkan. Ruuxii aan isbeddel ku suubin naftiisa aanan ka shaqaynin sidii uu gaari lahaa horumar wanaagsan waxa uu ahaanayaa mid ku guuldareysto mustaqbalka noloshiisa, waxaana dhacda inuusan helin ama xaqiijinin waxa ay gaareen dadka asaagiisa ah. Allah waxa uu ku leeyahay qur-aankiisa kariimka ah isaga oo ka hadlaya sida ay muhiim u tahay in lagu sameeyo nafta isbeddel. Waxa uu leeyahay Allah ma bedelo qolo xaaladood ilaa ayagu ay ka bedelaan naftooda. Taasi waxa aynu ka fahmaysaa in nolosha aan looga dhamayn in lagu sameeyo isbeddel ayadoo welibana lagu dadaalayo in laga bedelo dhanka xun ee liito loona bedelo dhanka wanaagsan ee keeni karo in naftu loo soo celiyo sharafkii iyo karaamadii ay ku lahayd nolosha. Haddaba maxay tahay waxyaabaha kugu saacidi karo inaad ku guulaysato isbeddelka noloshaada? Haddii aad doonayso in aad wax ka beddesho naftaada si aad u gaarto waxyaabaha aad ku haminayso, waxaa lagama dhammaan ah in aad raacdo qodobo dhowr ah si aad u gaarto hadafkaaga ku aadan noloshaada adduunyo iyo midda aakhira intaba. Waxyaabaha ku horseedi karo horumarka ama isbeddelka naftaada waxaa ka mid ah: marka hore waxaad isku daydaa in aad ogaato waxyaabaha kaa hortaagan in aad samayso isbeddel wanaagsan, iyo in aad naftaada weydiiso meesha aad rabto inaad gaarto. Taasina waxa ay ku suurageli kartaa inaad qorato wax waliba aad ku malaynayso inay qayb ka yihiin ama caqabad ku yihiin isbeddelka noloshaada. In aad mar waliba naftaada kula sheekaysto waxyaabaha wanaagsan iyo dhanka fiican oo ku gaarsiin kara in aad ka guulaysato mashaakilaadka naftaada. In aad badiso ku xirnaanshada Allah iyo in aad badiso baryadiisa si uu Allah kugu saqiro inaad ka guul gaarto naftaada. Sidoo kale in aad suuraysato mustaqbalkii aad rajaynaysay. Taasina waxa ay kugu saacidaysaa in aad wax badan ku sabarto caqabadaha ku soo wajahaya. In aad noqoto ruux sabar badan kana taqalusto waxyaabaha ka hor imaanaya ama kaa celinaya hadafkii aad lahayd. Ugu dambeyntii waxaad ogaataa in naftu aysan jeclayn in la sameeyo isbeddel joogto ah, balse ay u baahan tahay nafta in wax waliba lagu qasbo si loo gaaro nolol wanaagsan iyo in la xaqiijiyo mustaqbalkii lagu haminayay.